asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa daalaan media daawadeel meel kastoo joogtiin waxaa idinleena kula wanaagsan. xubinteena warka waxaynu kusoo qaadanaynaa maraykanka oo jabuuti ku deeqay gaadiid militari oo cusub. hadalka soo baxa safaaradda maraykanka kule dalka jabuuti ayaa lagu sheegay in markab sidii sixnad ka kooban 54 gaadiidka cusub ee nooca Humvees isbuucan soo gaareen dalka jabuuti. deeqdaasi waxay qayb ka tahay 32 milyan oo doolar oo tababar iyo qalab oo ay wadaagaan dowladda maraykanka iyo militariga jabuuti. hadal qoraal oo ay taliska militariga maraykanka u qaabilsan afrika ee africom ka soo saareen xaruntooda Salzburg ee dalka Jarmalka shalayto jimcadeed waxay ku sheegeen in gaadiidka militariga loogu yahay militariga jabuuti loogu talagalay inay adeegsadaan ciidanka qaaska ee jabuuti sida degdega faragelinta uu sameeyo ee loo yaqaano RIB. madaxa militariga afrika ugu qaabilsan tababarka jabuuti Captain Michel Simpson ayaa sheegay in keenista gaadiidka haatan loo keenay ciidanka jabuuti ay kordhin doonto awoodda guutada degdega faragelinta u sameysa ee ciidanka qaaska ee jabuuti ee loo yaqaano RIB si ay howlgallada kormeerka ugu sameeyaan iyo inay si degdega uga falceliyaan howlgal kastoo loo baahdo. guutadaasi waxaa lagu dhisay codsi tababar oo ay dowladda jabuuti horey u gudbisay dowladda maraykanka, waxaana tababarka ciidanka jabuuti ee fuliya howlgallada degdega dowladda lagu saaraa taatikada fudud ee ciidanka dhulka, qorshaha howlgallada jeynta dhulka, tababarka isgaarsiinta iyo casharo kale oo horumarsan oo dheeraad ah. taliyaha guud ee ciidanka dalka jabuuti jenaraal zakariya sheekh ibraahim oo ka hadlay munaasabadii lagu wareegayay gaadiidkaasi waxa uu ka mahad celiyey taageerada maraykanka iyo macallimiinta sida hagarla-aanta u tababarta ee kordhiyay aqoonta guutada ciidanka degdega u howlgalay jabuuti ee ciidanka qaaska ee loo yaqaan RIB. wuxuu intaas ku daray ciidanka RIB yihiin ciidanka ugu horeeya ee qaaska ee ay dowladda maraykanka kula heshiiyeen inay taageer buuxda siin doonaan. dhinaca kale militariga maraykanka waxay saldhig ku leeyihiin dalka jabuuti halkaasi oo ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii 2001. xerada militariga maraykanka ee loo yaqaano Camp Lemonor ee ku yaala jabuuti waxaa adeegsada taliska africom oo iyagoo howlgallada sirdoonka duqeymaha ka fuliya gudaha dalka soomaaliya. maraykanka waxay howlgallada ay ka fuliyaan xeradaasi ku taala jabuuti waxay kasii howlgali doonaan tan iyo sanadka 2034 waxaana u dhiga tallaabo muddo kordhin 10 sano oo kale ah. wadayaal xubinteena warka waaninta waxaadna kala socoteen daalacan media.